bismillaahiraxmaaniraxiim kusoo dhawaada jaalka maalmaha waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso aad u xiiso badan. qisadan ayaa waxay ku saabsan tahay faa'iidada ay leedahay sadaqada. qisadan ayaa waxay dhex martay ilmo agoon ah iyo nin ay diris ahaayeen. wiilkani ayaa waxaa lagu magacaabi jiray abuu maxamed. abuu maxamed wuxuu saacidi jiray ilmahan agoonta ah isaga iyo wiil ay diris ahaayeen. maalin maalmaha ka mid a ayaa abuu maxamed wuxuu soo iibsaday neef oo ugu talagalay inuu ka dhigto udxiyo. markii uu neefkii xaafadda keenay ayuu ka fakaday wuxuuna galay gurigii ay deganaayeen ilmihii agoonta ahaa. hooyadii dhashay ilmahan agoonta markii aragtay neefkan oo gurigeeda soo galay abuu maxamedna uu daba joogo ayay waxay u qaadatay inuu abuu maxamed neefkan u keenay. markaasay waxay ku tiri allaha kaa ajirsiiyo sadaqada aad noo keentay. abuu maxamed wuu xishooday wuxuuna garan waayey wuxuu ku yidhaahdo. markaasuu wuxuu ku yidhi allaha naga aqbalo. kadib alla ayuu baryey wuxuuna yidhi allow sadaqa iga dhig ajarna iga sii. wuu iska soo tegey. maalinkii dambe wuxuu aaday suuqa si uu usoo iibsaday neef kale. markii uu suuqa tegay ayuu wuxuu la kulmay nin gaari ka wada ari fara badan. markaasuu wuxuu ku yidhi hal neef iga iibi. ninkii ayaa wuxuu u soo dejiyey hal neef oo ka weyn neefkii uu ilmaha siinayay. abuu maxamed wuxuu ku yidhi ninkii qiimihiisa ii sheeg. ninkii ayaa ku yidhi dhib ma lahan ee gaarigaaga saaro waan heshiinaynaa. abuu maxamed neefkii ayuu gaarigiisa saartay. kadib ninkii ayuu u soo noqday. markaasuu wuxuu ku yidhi ii sheeg lacagta. ninkii ayaa wuxuu ku yidhi neefkani waa lacag la-aan aniga ayaa ku siiya iska qaado. wuxuu ku yidhi maxaa jiro. wuxuu yidhi sanadkan waxaan helay xoolo aad u fara badan waxaana nadar ku galay haddii uu xoolo badan alla i siiyo inaan hal neef ka bixiyo islamarkaana aan siiyo ruuxa ugu horreeya ee wax iga iibsanayo. sidaa darteed waxaa naqatay ruuxii ugu horreeyay wax iga iibsado. nasiib ayaad u yeelatay ee iska qaado. abuu maxamed wuu qoslay wuxuuna ogaaday in alla subxaana wa tacaala uu ku arsuqay wixii uu sadaqada ku baxsaday wax ka wanaagsan. qisadan waxaynu ka faa'iideynaa qiimaha ay leedahay sadaqada. wax sadaqayso maxaa yeele karfantu ma lahan jeeb wax lagu rudanayo. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha fadlan sabaskarab dheh gameerka riix si ay kuu soo gaaraan waxyaaba cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid.